diyaar garowga haddii aan wax ka sheego anagu aada iyo aad baan isku habaynay laakiin dhibaatooyin badan ayaan la kulanay intii ay ololuhu socdeen ilaa shalay toole habka iyagu habkii caadiga ahay doorasho la iskugu diyaariyi jiray weye diyaarna waan u nahay doorashada dhib kasta oo na soo gaadhay dhibo kale oo badan oo na sugayana waan ognahay inay jiraan hase ahaatee waxaa naga go-an in aan ka mida dhalino inaan ka madadadayno halgankayagii ESN ay 3 sanada soo waday ka qaybgalka doorashadanina uu yahay uun qayb kamida halganka walaalkayow jaamac shalay waxaad soo saarteen bayaan ku saabsan arrimaha doorashooyinka bayaankaasi muxuu ahaa bayaankaasi horta waxaa isla saxeexay 3 musharax oo kala Cumar Cilmi Khayre Maxamed Muuse Cali oo turtur loo yaqaano iyo Jaamac Abdurrahman Jaamac oo Andoole loo yaqaano bayaankaasi nuxurkiisu waxa uu ahaa in aan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan xasuusinaynay xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti in ay sharciga wadanka yaala ee doorashooyinka ku saabsan ay u hoggaansanto haddii ay yeeli weydana in dibta halkaa ka timaada ay iyadu mas-uuliyadeeda yeelan doonto haddii alla yidhaahdo waxaa kamida qodobadaasi 4 qodob bay 5 qodob bay iyo ahaa muhiimku qodobka ugu horeeya waxa weeye waa kolka tira koobka la samaynayo ee la tirinayo xafiis walba codka uu musharax kasi helay in ay muwaadiniinta reer Djibouti sida uu sharcigu dhigayo inay u joogaan tira koobka la samaynayo waa talabaade waxa uu kale sharcigu taa raacinaya ninka xafiiska wakiil ka gudoomiyaha xafiis kasta oo doorashadu ay ka dhacayso oo codbixinta laga dhiibanayo in uu marka koobkaasi uu dhamaado in uu iyada oo ummaddu maqlayso in uu natiijadii xafiiskiisa halkaa ka shaaciyo qodobka saddexaadna wuxuu ku qasbayaa xeerka wadanka Djibouti u yaalay isla mas-uulka aan soo sheegay in iyadoo qoran oo saxeexan natiijadii xafiiska uu mas-uulka ka yahay in uu ku dejiyo albaabka xafiiska laga galayo si ay ummaddu u wada akhrisan karto intaa haddii la waayana waxa aan ibakaba sheegnay una sii sheegnay caalamkana u sheegnay ummadana u sheegnay waxa la wixii dib halkaa ka timaada in uu dabarka ku qaadan doono madaxweynaha musharaxa ahi waan gartay jaamac garab ka mid ah mucaaradka ayaa qaadacay doorashada arrintaas sideed u aragtaan idinku waa arrin siyaasada weeye xaq bay u leeyihiin qaar annaga naga midii in ay yidhaahdaan iyagu waan qaadacnay xaq bay u leeyihiin annaguna waxaan ka doorbidnay intii badnayd ee xisbiyada ay ka kooban tahay dalada mucaaradku in doorashada laga qayb galo ugu dambeyntii jaamac ma aqbali doontaan natiijada ka soo baxaysa doorashada berri ka dhacaysa jamhuuriyadda Djibouti 5 shuruudood ee ku soo sheegay ee soo tiriyay ee bayaanka 3 musharax ay shalay toole si cad ugu qalinka ay ugu duugeen haddii xukuumadda Djibouti ay hirgeliso cid musharaxa oo ka doodi karta natiijada doorashooyinka ka soo baxday ma jiri karayso maadaama haddii 5 shuruudood la hirgeliyo doorashadu xor iyo xalaal bay noqonaysaa kolka hawshu waxay u taallay waa ciddii maamuleysay doorashadan waxa weeye waa xukuumadda Djibouti waa wasaaradda arrimaha gudaha waa musharaxa Ismaaciil Cumar Geelle waxa ay u yaala su'aasha iyaga in la weydiiyo ay tahay maxaad kala yihiin 5 qodob ma fulinaysaan mise ma fulinaysaan jawaabtii in lagu qarxayo in kale natiijada doorashada ka soo baxday jawaabta ay iyagu in siiyaan ayay ka soo bixi doontaa